رئيس الوزراء محمد حسين روبله ayaa ka hor yimid hadalkii dhawaan ka soo baxay hay'adda NISA ee ahaa inay al-shabaab dileen Ikraan Tahliil Faarax. Roble oo aan maanta hor dhignay inuu kala doorto sharciga dalka iyo saaxiibtinimada Fahad Yaasiin ayaa qaadacay qoraalkii isbaryeelida lagu tilmaamay ee ay dhawaan NISA ku daabacday TV-ga qaranka. Roble wuxuu sheegay inuu si dhow ula socday kiiskan uuna NISA siiyay waqti ku filan balse jawaabta ay sii daayeen ayuu ku sheegay mid aan lagu qanci karin. tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta Ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay'adda NISA in ay keenaan xog dhameystiran siiyayna waqti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Ikraan. hadalka Roble wuxuu ka dhigan yahay in aanay al-shabaab dilin Ikraan. waa jawaab cad oo sideeda ay u qaadan karaan qoyska gabadha. waa hadal weyn in ra'iisul wasaarihii dalku diido hadalkii NISA ee ahaa in al-shabaab ay dileen Ikraan. wuxuu hadalka ra'iisul wasaaruhu toos tuhun u gelinayaa hoggaanka hay'adda NISA. Roble wuxuu sheegay in si aan habboonayn loo maareeyay kiiska Ikraan. wuxuu qaatay mas'uuliyadda cadaalad siinta Ikraan iyo qoyskeeda isagoo xiganaya qodobada 10aad, 15aad iyo 33aad ee dastuurka dalka oo ka hadlaya ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta. ra'iisul wasaare Roble wuxuu u ballan qaaday Ikraan iyo qoyskeeda inay cadaalad helaan. haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas'uuliyadda isaaran Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa waxaan u cadeynayaa qoyska Ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad. kiisku haddii uu jiro dhanka al-shabaab oo Ikraan shabaab dileen Roble ma ballan qaadi karin cadaalad oo waxay mari lahayd wadooyinkii ay mareen dadkii ka horreeyay. balse tani waa fariin kale oo xoojinaysa tuhunka laga qabo in Ikraan dileen hoggaanka hay'adda nabad sugidda qaranka. ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble oo lagu xantay inay saaxiib yihiin taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa markaan u muuqday inuu rabo inuu si dhaba u maareeyo kiiskan wuxuuna Fahad u qabtay inuu 48 saacadood ku keeno warbixin buuxda oo lagu qanci karo oo ku saabsan kiiska Ikraan. taas oo waxba kama jiraan ka soo qaaday warbixintii hore uga soo baxday taliya Fahad iyo taliskiisa NISA. sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran ee ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. hadalka ra'iisul wasaare Roble wuxuu qoyska Ikraan u leeyahay 4 faa'iido. 1 gabadhooda ma dilin al-shabaab. ra'iisul wasaarihii dalka ayaa diiday warbixintii ahayd al-shabaab ayaa dilay mana jirto meel dambe oo loo celiyo fariintaas. 2 ra'iisul wasaaraha oo qaatay mas'uuliyadda arrintan taas oo hadda kadib siinaysa albaab cusub oo ay la macaamilaan oo aan ahayn hoggaanka NISA. 3 kiiska Ikraan oo noqday mid qaran. hadalka Roble wuxuu kiiska Ikraan ka dhigay mid qaran. horay Farmaajo iyo NISA waxay u diideen inay uga hadlaan dhowr kiis oo meel cidla looga dhaqaaqay. laakiin hadda kiiska Ikraan meel cidla loogama dhaqaaqi karo oo waxa yaala muuqaalka ra'iisul wasaaraha oo diidaya warbixintii NISA. 4 dacwadda kiiskan ma noqon karto mid ay ku lifaaqan yihiin dagaalyahanada al-shabaab. sidoo kale dacwadda kiiskan ma qaadi doonaan ama kama shaqayn doonaan xubno ka tirsan NISA maadaama hadalka ra'iisul wasaaruhu uu tuhun geliyay hoggaanka hay'adda NISA. waxaa cadaaladda horteeda ku doodi doona qoyska Ikraan Tahliil Faarax iyo hoggaanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. 4taas arrimood oo laga dhex qaadan kara hadalka ra'iisul wasaare Roble waa kuwo si weyn u caawinaya qoyska Ikraan Tahliil Faarax. maxay kula tahay adiga?